السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن أخياري ميل والبوء الجوكتان وحربا إنا ويديو قبلها الربا من يرى إني نقضان حاس كلابات أما صدحات أما أفراد هدبكاد وتقاند وحدنو كوهايو هبلاي وحالو قرصة يكون جرام وذهبة هبلاي بقول جيلا لقبحيه هبلاي ساوى كوهايو أما شروطه وتا وحربا إنا ويديو كفهني شروطها أنت أنا لجارين نكان ربطت inuu ku guursado ama inta uu ka bixi aad jeceshahay xaas buu hore u qabay waxaaskiisa kuwaad ah waxaan rabaa inaan ii sheegtid aad iga jaahil bixisid inta la gaarin garaamka ii geela maxaad kaga duwan tahay xaaska kuwaad ninkan hore u qabay ama ilmihii ay u dhashay ilmo ka qurux badan baad u dhali doontaa ama ilmo ka quality fiican miyaad u dhali doontaa maxaad kaga duwan tahay oo ninka ku soo ziyaadin doontaa ma biti lacageed baad u haysaa ma biti adduunyaad u haysaa waxaan baan gabadhaas kaga duwanahay ee intaana xoolaan u baahanahay waa wax la fahmi karo waxaan u baahanahay aniga naftirkii shakhsiyan inaad ii sharaxdaan waxa uu qofkan uu kaaga doorbidaayo qoftii hore wuxuusan u sameeynin adiga uu ku sameeyay muhiim ma aha uma arki qoftii hore amalaan ahay laakiin 120 geel iga bixi muhiim buuran uma arki laakiin waxa muhiim u arkaa waxyaabo aadan haysanin waxyaabo aadan helin baa kugu soo ziyaadinaya fursad baan ku hayaa saas darteeda agreementiga inaan isla galno taasaan fahmi karaa dadka oo idin taas ay fahmayaan marka gabdhaha agtooda kulliba jawaabo waa ka helaynaa insha Allah inay noo sharxaan waxa ay gabadhi kuwaad ay kaga duwan tahay maadaama ayada ay codsatay Iblaahi saana loo subay Iblaahi saana loo subay waxaan ay sabay markii ay leedahay gabadha labaad ama saddexaad ama afraad gadaal ka timid waxay kaga duwan tahay inay maxal yiraahdaa miiska ekeet in Iblaahi saas loo sameeyo kaliya in kugu sameeyo muhiim ah wax aqli ahna ma logica wax logic aan u baahanahay naga dhaadhici 120 way fudud yihiin geela sidoo kale garaamkana wuu fudud yahay jacaylka la sheegayna sida aniga aan ogahay dadka qaarna ay aaminsan yihiin ustaad mubaarakna buugiisa uu ku qoray agreement labada dhinac ay wada galayaan waa agreement labada dhinac ay wada galayaan waxa khasab ah labada dhinacna inay faa'iido ku qabaan agreement hal dhinac oo kaliya faa'iido uu ku qabo lababa galaba sideedaba kaas adeeg khasaara kugu jirta dhinac kale ta faa'iido haduu ugu jiro guurka maadaama agreement labada dhinac faa'iido ugu jiro uu yahay فإذا نك نكيسة مركو كابحي جرام تسلك جيل تسلك وكابحي دين عيسى وكو قبايل نشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.